kadib markii ay burburtay dowladii dhexe Soomaaliya waxay shacabka Soomaaliyeed noqdeen kuwo ku soo farxada daafaha caalamka oo qayb ka yahay dalkani Koonfur Afrika. Haddaba South Africa waxa uu noqonayaa dalka labaad ee qaaradda Afrika ee Soomaalida ugu badan ku nooshahay, sidaas ay tahayna waxa maalin kasta boob, dhaawac, dil iyo dhibaatooyin joogto ah lagula bartilmaameysadaa Soomaalida ku ganacsata dalkani. muddooyinka ugu dambeeyay waxa iska kacsanaa xaaladda Soomaalida Koonfur Afrika waxaana caadi ka noqotay dhimashada joogtada ah ee lagu baalsiibay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee iyagu ku nool guud ahaan waddankan South Africa. Da'da ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto dhibaatooyinka dalkani waa kuwa u dhaxeeya 18 jir ilaa 40 jir oo ah da'da maanta lagu faano. Cabdikariin waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xoogga furan da'diisu waa 21 jir waxaa 13 September ee sanadkan dhaawac halis ah loogu geystay xaafadda Khaliija ee duleedka magaalada Cape Town waqti uu ku guda jiray howlihiisa shaqo. Muwaadinkan waxaa leeftay xabadda dhagar qabayaasha iyadoo dhanka kore ee madaxa xabad looga dhuftay. Dhibanaha ayaa nooga warbixiyay sida ay wax u soo gaareen waqti aynu kula kulannay barxadda weyn ee beerta raaxada oo inta badan ay yimaadaan dadka doonaya inay xasuustooda dib u soo celshaan. xabad ay ugu soo rideen waa ka gambaday wiil aan ila jooga xabad ka huriday kadib aniga waxaas dhaynay markii waa bixin anoo gambana soo kor u soo kacay kadib xabad madaxa iga dhacday. sidoo kale Cabdikariin oo xusay waxa uu ka aaminsanaa dalkan South Africa ka hor inta uusan imaan ayaa sheegay inuu u haystay dal barwaaqo ah kana wanaagsan midka uu waqtigaasi joogay. South Africa wadan markiisii hore waa fiicnaa wax horumar loo gaaray dadka waa islahayn laakiin aniga markaa imaanay sidaas lahayn laakiin dadka walaalay waxa uu baaqay inay wadankooda iska joogaan waxay qarash ku soo aadilaan South Africa iskaga shaqeystaan wadankan wax horumar ma leh waa la bartilmaameedsan dadka Soomaaliyeed meel horumar taalna ma. ugu dambeyn waxa uu baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu wali jooga dalkooda hooyo Soomaaliya inaysan isku soo lugoonin dalkani maadaama ay dad badan oo ku sugan dalkan ay ku waayeen xubnahooda lixaad. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Journal, South Africa.